are you from? haddii lagu yidhaha where are you from, it means xageed hadda ka timid, or it means ama waxay ka dhigan tahay xageed asal ahaan aad ka soo jeedaa. qofka markuu horeysa ee aad kulantaan ama aad saragtaan, waxaad u horeeya ee aad sameyneysaan ama aad isdhahaysaan waa salaantii. salaantuna hadduu qofku muslim yahay waxaad ku salaami, xataa cadaan haddii uu yahay iyo haddii uuna ahaynba, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad ku salaami. laakiin haddii aad u aqoonsato inuuna ahayn, waxaad iska dhihi kartaa hello waad dhihi kartaa. kama dhigna qof muslima hello lama dhihi karo, hello waad dhihi kartaa qof muslimna. haddii hello lagu yidhaha oo lagugu salaamo, waxaad ugu jawaabi kartaa isla hellowdii baad qofka ku celin, ama waxa kaloo aad ugu jawaabi kartaa hi. hello, hi. kadib maxaa ku xiga? how are you? see tahay? hello waan ku salaamay, hi adna waan ku salaamay. how are you? see tahay? I am good, waan fiicanahay. how are you? adu see tahay? good, waan fiicanahay. do you speak English? Englishka ma taqaan ama Englishka ma ku hadashaa? a little, labada t ee dhexda ku jirta d waad u akhrin kartaa, haddaad rabtana saa ay u qoran tahay ayaad u akhriyi kartaa. a little amaba a little. a little means wax yar. are you American? ma waxaa tahay Maraykan? are you American? ma Maraykankaad ka timid? Djibouti qofku haddii uu ka imidna waxaad ku leedahay are you, ma waxaa tahay Djiboutian? qof Djibouti ka yimid baa tahay. ama haddii uu ka imid Ethiopia, waxaad ku leedahay are you, ma waxaa tahay Ethiopian? nin u dhashay Ethiopia. yes, ha. I am American. are you American? yes, ha. American baa tahay, ha. where are you from? xageed haddaba ka soo jeedaa? halkeed ka timid? Maraykan oo dhankeed ka soo jeedaa? I am from New York. waxaan ka imid New York ama reer New York baan ahay. waxaa kaloo aad dhihi kartaa I am from Addis Ababa. Addis baan ka imid. or waxaad dhihi kartaa I am from Djibouti. Djibouti baan ka imid. or waxaad dhihi kartaa I am from Hargeysa. Hargeysaan ka imid. or waxaad dhihi kartaa I am from iyo meeshii aad ka timid baad gelinaysaa. nice to meet you, barasho wanaagsan. nice to meet you too, barasho wanaagsan adna sidoo kale. lesson 2 daawo insha Allah.